بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka saadka aakhiro waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa qiso dheer oo taxana noqonaysa oo ku saabsan gabar muslimad ah wadadii ay u soo martay diinta islaamka inay qaadato. kuna soo dhawaada qaybteedii koobaad. gabadhani soo muslintay waxay u dhalatay dalka Itoobiya iyada oo ka warantay qisadii ay ku muslintay waxa ay ku bilowday sida tan. anigu marka hore ujeedkaygu ma ahayn in aan diinta islaamka soo galo, balse nacaybka aan diinta islaamka u qabay ayaa ii horseeday inaan diinta islaamka qaato. magacaygu waa Simrat Fatane, waxaan ka soo jeedaa qoys Kristan ah oo madhabta Orthodox haysta. waxaan ku dhashay magaalada Baxardaar iyadoo ay waalidiintaydu ay ku dhaleen waxa loo yaqaano nadir, maadaama ubad la'aan ay haysay. marka ay da'daydu 3 jir gaartay waxaa la igu wareejiyey kaniisad maadaama uu nadirkoodu uu sidaasi ahaa. 3 jirkaygii ilaa aan ka galo jaamacadda Addis Ababa, kaniisadda ayaa gacanta igu haysay oo isoo barbaarisay, noloshayda oo dhan ka faala qaaday. maadaama aan kaniisadda adeegto ka ahaa, waxaan nasiib u yeeshay inaan jaamacadda Addis Ababa aan ku biiro. marka aan jaamacadda galayay, niyaddayda haba yaraatay inaan diinta islaamka qaato ama aan wax ka ogaado iguma jirin, maadaama ay noloshayda oo dhan ka soo jeeday kaniisad iyo diinta Kiristanka. marka diinta Kiristanka aan baranayay oo aan Kiristanka ahaa, waxay islaamku u yaqaaneen amaba ay ugu yeedhaan axzaab oo ay ula jeedaan kaafir. xog kasta oo diinta islaamka ku saabsan in aan ogaanana waana laga ilaalinayay. waxayna Kiristanku aaminsan yihiin axzaab oo ay ula jeedaan muslimiinta in ay jannada waxba ku lahayn, waa sida iyagu ay aaminsan yihiin. jaamacadda dhexdeeda waxaa ku yaala 2 hool oo ay ardaydu ku cunteeyaan, mid Kiristanka u gaar ah iyo mid ay muslimiinta iyo Kiristankaba ku wada cunteeyaan. hoolkii Kiristanka ee aan ku cunteyn jiray ayaa buuxsamay. markaasaan ku biiray dhinacii muslimiinta ay ku cunteynayeen, balse waxaa loo kala fadhiyaa muslimiinta dhinaca midigta, Kiristankana dhinaca bidixda, balse way isu jeedaan, wax gidaar ahna uma dhexeeya. anigu nacaybka aan u qabay muslimiinta darteed, markastoo aan qof muslima arko ama gabar xijaaban, labo ayaan dareemi jiray maadaama nacaybka islaamka aan ku soo barbaaray. haddaba maalin maalmaha ka mid ah, gabar muslimid ah oo ka mid ahayd ardayda aan meesha wax ku wada cunaynay oo lagu magacaabi jiray Honza, allah u naxariistay oo haatan geeriyootay, ayaa ficiladayda kor kala socotay oo mar walba la socotay waxa aan samaynayo, iyadoo wejigayga ka akhrisatay muslim nacaybkayga, iyo markastoo aan gabar muslimadoo xijaaban arko sida uu wejigayga u bedelmayo. gabadhii waxay go'aansatay in ay arrimahayga oo dhan ogaato. aniguna hoolkii aan ku cuntaynayay ee muslimiinta nagula jireen in la iga bedelo ayaan jaamacadda ka codsaday, waxaana dib la igu celiyey qaybtii ay ku cuntaynayeen ardayda Kiristanka oo keliya. gabadha muslimadda ah xijaab iyo niqaab ayay qaadan jirtay. maalin ayay ii timid iyadoo dhar caadi xidhan oo xijaabkiis ka soo dhigtay, waxayna igu tidhi, Simrat, muslimiinta inta aan meel cidla ah ka nici lahayn, inta aynu diintooda wax ka ogaanno maannacno amaba jeclaanno, iyadoo markaasi isaga kay dhigayso gabar Kiristan ah oo islaamka nacayba. waxaan ku idhi, sidee taa noogu suuragelaysaa? ma masaajidka ayaan aadaynaa? masaajidka aadi maynee, jameecada muslimiinta ee jaamacadda ayaan ka dalbanaynaa qof diinta islaamkana bara. kitaabkeenna Kiristanka ayaan muslimiinta u akhrinaynaa. haddii aan ku guulaysanno diinteenna ayaan soo gelinaynaa, haddiina laga guulaystana annagoo og ayaan iska dhaafaynaa. ugu yaraan nacaybka ayaan joojinaynaa. anigu taladii ay gabadha iila timid waan yeelay. waxaan bilownay inaan diinta islaamka wax ka baranno. allah u naxariistee wiilkii aan markii dambe isguursannay balse hadda aan noolayn oo lagu magacaabi jiray Axmed ayaa amiirka ardayda muslimiinta ee jaamacadda, gaar ahaan qaybta wiilasha ahaa. waxaana u tagnay amiirka iyadoo u sheegtay inay jirto gabar diinta islaamka nacayb oo aan doonayo in aan diinta barno. waxaana idinka codsanayaa inaad sheegin inaan anigu muslim ahay, sidii qof aan diinta garanayn wax noo bara. anna waan la baranayaa ayay ku tiri. waxaan bilownay barashadii diinta islaamka. anigana waxaan dhankayga u akhrinayay amiirka iyo dadka la jooga kitaabka Kiristanka. haddaba maxaa dhacay? waa hagaaga qisadii aan kaga hadlaynay walaasheen haatan muslimad ah oo horay Kiristan u ahayd, sida ay ku soo muslintay iyo waddadii ay u soo martay. qaybteedii koowaad halkaa haynoo joogto. waa inoo qaybta labaad iyo channelka saadka aakhiro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.